وواح لياب له aad iyo aad la yaab u leh xasan sheekh iyo maanta wixii lagu dhawaaqay oo la leeyahay heshiisaa la gaaray oo doorashada waxaa la yidhi madaxweynaha waxaa dooranaya muxuu ahaa baarlamaanka xubnaha baarlamaankana waxaa lagu dooranaya doorasho qof iyo coda wax horta isqabta maaha runtii haddaa fiirisid wax isqabanaya arrinta labadaas arrimood ma aha runtii waa laba arrimood aad u kala duwan runtii waa arrin la yaab leh xasan waxa ku dhacay ma aqaano aniga xasan majaleeca helay xasan caadi ma aha xasan waxaa waaye ma aqaano se wuxuu ka noqdeen waxaanse la yaabanahay qolada kaloo hadda qoladan ay ka soo go-een waxa ay diidan yihiin haddiiba la yidhi madaxweynaha maaragtay lagu dooranaa teendhadii ama meel lamida waxa ay diidan ilaa hadda waa la yaabana anigu oo macnaha qoladan uga soo hareen waxay u muuqataa in qoladii muxuu ahaa isku sheegayay samata bixinta inay maaragtay xasan ka guulaysteen haddaa fiirisid sababtoo ah waxa waaye waxaan macquul ahaynaa ka soo baxay maanta warkii nimankii shirki ay shireen waxaan macquul ahayn oo maaragtay dimuqraadiyaddana ka fog haddaa fiirisid sababtoo ah waxa waaye weli lama sheegin madaxweyne iyo baarlamaankii iyo golihii degaanada oo lagu kala dooranayo laba noocoo doorashaa lagu kala dooranayo wax la yaab loo wax aad iga yaabo ani kolley maaragtay waxaa waaye wareerka ka jira waddankayna ka mid tahay runtii haddii maxaaba la doortaa wax la doorta aniga ilama aba in xataa doorasho qof iyo codar la geli karo sababtaa waxaa waaye maxaa la dooranaa haddaanba dowladda la dooranaynin oo dadku aysan dowlad dooranaynin waa midda ugu maaragtay sheeg dadka ay aad u xiiseynayaan waa madaxweynahooda inay doortaan marka haddaan la dooranaynin haddee maxaa meesha yaal meesha wax yaal ma leh waxaa waaye waa sheekada caadi maaha wax laga yaabo ma aqaan ma xasan ku dhacay xasan ma inkaartii dadku uu barakicinaya maaragtay kasoo baxday ma ogi runtii see wax u jiraan hagee waxaan ka yimaadeen macnaha maalin dhawood waa kii lahaa doorasho qof iyo coda la gelaa waa isla jisgaraynaa see wax u jiraan arrin iga yaabiso wallaahi bilaani aad iyo aad iga yaabisay sababtoo ah waxaa waaye wax isqaadanaya xataa maaha haddaa fiirisid doorasho qof iyo coda la gelaa oo qaybo ka mida maaragtay ii sheeg mas-uuliyiinta lagu soo dooranayaa haddana madaxweynaha waxaa lagu dooranaa baarlamaan wax isgeli kara maaha qofkii arrintaas maaragtay ay ka timidna qof siyaasiya maaha oo yaqaanaba maaragtay siyaasaddu waxay tahay runtii haddaa fiiri sababtoo waxaa waaye wax laga yaabo caalamka lagama sheegin taas oo kale ya caalamka ma laga sheegin midaas oo kale doorasho baarlamentariana iyo doorasho qof iyo coda oo laysku dhinac wado lama sheegin caalamka runtii waa wax aad la yaab ulo ma aqaan soomaaliya dadku siday u fakeraan macnaha siyaasiyiinta soomaalidu siday u fakeraan ilaa hadda waa fahmi lahaa aniga runtii nidaamay qaateen nidaamka ay qaateen ama siduu yahay u qaadanayaan ama haddii kale ina iska dhaafaanayaan midada kale waxaa waaye waraarka wuxuu ka taagan yahay dimuqraadiyadda laftigeedaaba iska sii gabaabsiya caalamka oo caalamka waxaa waaye 4 sano oo soo socota ama 8 sano oo soo socota dimuqraadiya caalamka ma jirayso annagu waxaan dabada uga dhiganahay dimuqraadiya aan jirinba runtii oo
xilligeedii dhammaaday dadkuna aysan rabin caalamkana meel walba dictatora ka soo socdo kabadhiga waddankii uu hogaaminayay dimuqraadiyadda oo hogaaminayna dhahay maraykanka marka xaaladdan meel u socoto ilaa hadda waa fahmi lahaa aniga intaasaan usoo galay maca salaama waxaa ka qabtiin bal commenting kusoo qora